marka waxaan leenahay soo dhawaada waxaad ku soo dhawaanaysaan bandarseed haddaan marka bandarseed hoos u galo tansiilaadka dadweynaha ee ka dhiman ceelkii waan qodnay waxaana ku qodnay tabarucaad aan ka helnay deegaanka iyo jaaliyadaha dibadda ceelkii biyihiisii waa la gaarinay waxaana ka dhiman matoorkii bumbadii gurigii la dhigahaya matoorka meeshii dekadii ama muxuu ahaa waaskooyinkii biyaha xooluhu ka cabahayeen wax badan baa ka dhiman meeshaan marka deegaanka tansiilaad badan baa ka dhiman waxbarashadii waa ka dhiman tahay isbitaalkii waa ka dhiman yahay stationkii waa ka dhiman yahay haddee waxaa weeye maanta idinkaa u yimid wafdiya dalkana dowlad u ah waxaan ku codsanaynaa inaad codka iyaga meel kasta gaarsiisaan oo nagala soo caawiyo dhibkaas meesha ka jira oo biyuhu xataa waa qaraar waxay u baahan yihiin in la helo makiinadaha wax sifeeya dadku ma cabi karo laakiin xoolaha ma cabi kara intaas kadib baahida reer bandarseed haddaan ku laabto wax yar dadkii aasaasay meeshaan waxay ahaayeen dad barakacyaal ah oo dadkii xoolaha abaaru dhaafiyeen iskugu yimid meeshaan guryaha dhisan aad u jeedaan waxay ku dhiseen iskaashi walba marba la isugu tegey waa iskaashi bay ku dhisteen kadib sidaas aad u jeedaan magaaladaas u jeedaan baa ka dhisantay bacdi baahideena haddaan ka warranno reer bandarseed waxaa noo qodan ceel sidii uu idin sheegay duqa magaalo cumar ay magaaladu tabarucaad lacagtiisu ka aruurisay ayaan la kaashatay dadkii jaaliyadaha iyo dadkii soomaalida kale oo ay ka soo jeedeen ceelkaas qodninkiisii lacagtiisii qayb baa laguna ku leeyahay qaybna waa bixin mitiraadkii riigii qodahay markii aan kula heshiinay 5 mitir markay nooga dhiman tahay injineerkii ceelka qodayana uu leeyahay biyihii macaanaa wax yar baa nooga dhiman ayaa waxaa ku go'ay madaxii ceelka qodahayay riiga iyo 3 birood ayaa ku go'ay sidaas awgeed riigii wuxuu isku dayay inuu dibadda ka dalbo alaab uga soo qabto ceelka bariig ku go'ay waa u suurtagal weey kadib wuxuu yiri anigu waxaan ka qaban karaa hadda ka bacdi lama arko dadkuna dad isku tagay bay ahaayeen oo aan tabar kala lahayn sidaas marka tala ka bacdi dib kor ayaa loo soo laabtay biyo xaraar oo kor lagu soo dhaafay ayaa lagu laabtay biyahaas ayaa ceelka lagu kaysan gareeyay biyo waxa weeye xoolaad biyo dad maahan biyaha ceelka hadda laga cabo xooluhu ka cabaan waa biyahaas biyihii macaanaa dadku waa maqan yihiin waa baahida ceelkan reer bandarseed inta ay baahideedii maaragtay uga hirgashay waxaa ka maqan caafimaadkii waxaa ka maqan waxbarashadii maadiga ahayd waxaa ka maqan amniga qaybtii amniga booliiska waxaa ka maqan hool santarkii ee bulshada kulli ahaan way ka maqanta intii dowladda qaban lahayd ama hay'ad qaban lahayd kulli waa ka maqan yihiin marka baahida guud oo ka dhiman bandarseed dowladda galmudug ayaan maanta waxaan ka codsanaynaa iyo dowladda federaalka iyo caalamkaba waxa naga dhiman wax nagala qabtaan haddana ay maartay naga gaarsiiyaan dowladda galmudug maamulka nagala jooga waana ka baxay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu deegaankan galmudug dood baa loo dhisay dooda loo dhisay madaxdeedu taas shanta waxa la yiraahdo story baa la yiraahdaa madaxweyne ku-xigeenkii gudoomiyihii baarlamaanka ku-xigeenkii koobaad iyo ku-xigeenkii labaad gabadhaas saddexdaas reer galmudug way madax ka yihiin annagu ka beel ahaan laba xildhibaan baa joogta xildhibaan Yoris Maxamed Shaare iyo xildhibaan Maxamed Xuseen Taali kiliyaado xildhibaan waxa weeye dadkan baa iska leh dadkiina iyo dadka deegaanka degan baa iska leh maalba meel ay tagaan wax ka qabtaan dowladda geeyaan soo ururiyaan hay'adaha sanfaka la hadlaan meel ma ahan marar ma aha xisaatanka 4 sano oo la soo dhaafay galmudug iyo 4 sano hadda lagu jiro waxaan rajaynaynaa wax kala bedelan ay noqdaan dalka amnigiisu wax iska bedelo dhaqaalihiisu wax iska bedelo shaqadiisu wax iska bedesho hurdo dambe aysan jirin marka waxaan kugu baaqo dowladnimada inaad marka idin soo gaarto hore u qaadataan waa idin imaanaysaa idin soo gaari doontaa madaxda meesha ku soo waa imaan doontaa madaxdiina inay yihiin marka maqashaan oo riboodka la idin keeno
kor u qaataan baahidina u sheegtaan soo dhaweysaan deegaanadaas oo dhan bay soo mari doonaan insha Allah saasaan rabaa inaan idinku soo dhaweeyo aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa dhabar adeygii aad ku dhabar adeegteen meeshaan dadaalkiinnii aad kamera dhaliseen oo hadda ii muuqda waxaan ka nimid caasimadda Dhuusamareeb ee lagu dhisayay dowlad goboleedka Galmudug State waxaan marka hore salaanin kaga wadnaa madaxda halkan ku sawiran ee reer Galmuduga shanta xubnood oo madaxweynuhu ugu horeeyay gudoomiyaha baarlamaanka ku xigo iyo ku-xigeenada madaxweynaha ku-xigeenka iyo ku-xigeenada baarlamaanka intaan ayaa hadda Galmudug ugu sareysa waxaan kaga wadnaa salaan kali mas'uulnimo kaliya laab leh oo ay u horeyso assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaanka bacdi iyo mahadnaqa bacdi waxaan leenahay Bandarseed dadkeeda shacabkeeda soo dhawaada waxaan maanta idin wadnaa anigu waxaan ahaa gudoomiyihii guddiga doorashada Galmudug waxaan kow maanta idin ku soconay madaxda dowlad goboleedka Galmudug iyo adinka inaas barataan waa kuwan sawiradoodii shantan qof shantan mas'uul ayaa maanta madax ka ah Galmudug baahida sheeganaysa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala keeni kara laakiin mas'uuliyadaasi waxay saaran tahay mas'uuliyiinta halkan ku qoran oo Galmudug ugu sareysa maanta waxa Galmudug ka dhisan baarlamaanka iyo mas'uuliyiinta shanta halkan joogta waxaan u jeednaa Bandarseed degmadan inay maanta hore u socoto in ceel biyoodkii laga sameeyay in gurigii martida hadda aan dhex taagannahay in guriyo badan laga sameeyay dadkuna ay dadaalhayaan aad iyo aad baan ugu jeednaa waa magaalo ku soo biirtay deegaamada Galmudug aad iyo aad aan ugu faraxsanahay aad iyo aad baan dadkii shaqada qabta ugu mahadcelinaynaa magaaladan Bandarseed waxaanu yeelaynaa hadii Ilaahay qadaro baahidan aan sheegteen waxaan annaguna waxbaan ka qaban doonaa maamulka iyo madaxda iyo madaxweynahana waa u gudbin doonaa galabtana waxaanu dhagax dhigi doonaa hadii Ilaahay qadaro baahida meeshan ka muuqata labada arrimood oo ugu daran labada arrimood waxay yihiin caafimaadkii xarun caafimaad iyo meel qofka jirada iyo gabdhaha umulahaya meel lagu daryeelo mala meeshaani galabta waxaan dhagax dhigaynaa isbitaalkii degmada Bandarseed hadii Ilaahay qadaro mas'uuliyadaasna waxaan saaraynaa madaxweynaha halkaas urkiisaan ku dhajinay oo dadkan mas'uulka ka ah oo Axmed Cabdi Kaari Qoorqoor asaga mas'uuliyadaas koow waxaan saaraynaa madaxweynaha waxaan kaloo dhagax dhigaynaa xaruntii waxbarashada iskuulkii si intaan ay u helaan waxbarasho dalkii dadkoodana wax u qabtaan shaqada maanta waa qaybinayaa kulay ayaanta horumar baa la gaaro arinta hadda live baa socda madaxweynihii iyo gudoomiyihii baarlamaanka waa dhageysanayaan maadaama aan ahay gudoomiyihii guddiga doorashada madaxdan soo saaray isbitaalkii waxaan u diray madaxweynaha iskuulkiina waxaan u diray gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Nuur Gacal bari baan u tagayaa hadii Ilaahay qadaro waxaan rajaynayaa baahidaas in laga soo jawaabo adinkuna waxa la inka rabaa madaxdan way imaan doontaa hadii Ilaahay qadaro inaad soo dhaweysaan ee la shaqeysaan dalkani iskaashi wax ku noqon kara waxaan kala rabaa inaan idin sheego degmadani waxay ku taala meel muhiim ah oo leeyahay Bandarseed hobi waxay u jidaan u malaynayaa 180 miya dhinowdo oo halkan la mid oo xagga deegaanka Galmudug u xigtana ayna 120 bay u jidaa kaalkacay waxay u jidaa 70 bay u jidaa intaas waxa u malaynaa nabadgelyana waa bantamay ku taala waxaan rabnaa maantay inaanu cadeyno hadii Ilaahay qadaro doorasho soo socota doorashada qaranka Soomaaliyeed baa soo socda baarlamaanka waa la qaybsanayaa beelbeel baa loo qaybsan doonaa hadii Ilaahay qadaro xildhibaankii odow waxa lagu dooranayaa ee sanduuqi la dhigayaa hadii Ilaahay qadaro degmada Bandarseed qof kasta oo xildhibaankaas hunguri kaga jiro ama musharaxa ha ku xisaabtamo dadka codka laga rabaa dadkan inay yihiin degmadani marka beelaha shan sheegnay waa meesha degmada hadda ugu himnada fiican
waxaana lagu tixgelin doonaa haddii ilaahay qadaro musharaxiinta xilka u soo socota haddaba waxaa gacanta ku haya xildhibaan cabdikariin khaliif cabdi dhalac oo xildhibaanada qaranka Soomaaliyeed ka mid ah kulli siyaasadda hunguri kama dhamaado way maqlahayaa xildhibaano kale dad kale musharaxiina oo hadda aniga liiska ii soo gudbiyana waa jiraan rag kalena waa imaan doonaan ragga iyo gabdhaha ahaadeen xilkaas doonayo waxaa la ku tixgelin doonaa degmadan cusub saa wax uga qabataan iyo dhammaan deegaanka intaasaan galabta war ku soo kormeeyaa xafladan hadda waxaan u nimid inaan dhagax dhigno isbitaalkii degmada Bandarseed ilaahay waxaan ka baryaynaa ilaahay inuu nagu guuleeyo annagaana ballan qaadnay inaanu dhisno haddii ilaahay qadaro dawladda Galmudug haddaan nahay haddaan hay'ad wax ka helno iyo haddaan jeebka gacanta gelino iyo haddaan madaxda hor tagnaba waxaanu ballan qaadnay inaanu isbitaalkan dhisno haddii ilaahay qadaro marka waxaanu dhex dhigaynaa isbitaalkii shaqadaana waxaa iska leh xildhibaan gudoomiyaha guddiga arrimaha bulshada xildhibaan Yunis Shaare waxaan rabnaa hadda sidaan awal u sheegnay inaan dhagax dhigno iskuulkii waxaan rabnaa madaxweynaha Galmudug gudoomiyaha baarlamaanka madaxweyne ku-xigeenka gudoomiye ku-xigeeyaasha madaxda hadda dhisan kuwa soo socda waxaan dhammaanteena waajib baa naga saaran waxaan soo jeedaa hadda galabta waa dhagax dhigaynaa waa 2020 bishii 3 weey